Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Tobanka wadan ee ugu dhulka weyn Afrika ayaan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa. Ku soo dhawaada muuqaalka. Lambar 10 Mauritania. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania waxa ay dhacdaa waqooyi galbeed Afrika. Magaalo madaxdeeda waxaa la yiraahdaa Nouakchott. Badkeedu waxa uu gaarayaa 1,370,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 9 South Africa. Jamhuuriyadda Koonfur Afrika waxa uu dhacaa sida ka muuqata magaciisa Koonfurta Afrika. Badkeedu waxa uu gaarayaa 1,221,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 8 Mali. Jamhuuriyadda Mali waxa uu waa wadan ku yaala galbeedka Afrika, waana dal xiran oo ma laha wax bad ah. Badkiisu waxa uu gaarayaa 1,240,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 7 Angola waxa ay dhacdaa Koonfur galbeed Afrika. Badkeedu waxa uu gaarayaa 1,246,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 6 Niger. Jamhuuriyadda Niger waxa ay dhacdaa galbeedka Afrika, waa dawlad xiran oo ma laha wax bad ah. Badka Niger waxa uu gaarayaa 1,267,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 5 Chad. Jamhuuriyadda Chad waxa ay dhacdaa bartamaha Afrika. Badka dawladdaasi waxa uu gaarayaa 1,284,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 4 Liibiya waxa uu badkiisu gaarayaa 1,759,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 3 Suudaan. Jamhuuriyadda Suudaan dalkan waxa uu ahaa wadanka ugu dhulka weyn Afrika ka hor inta aanay ka go'in Suudaanta Koonfureed. Badka Suudaan waxa uu gaarayaa 1,861,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 2 Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waxa uu dhacaa bartamaha Afrika, waa dalka labaad ee Afrika ugu dhulka weyn. Badkiisu waxa uu gaarayaa 2,344,000 kiiloomitir iskuweer. Lambar 1 Aljeeriya. Dalka Aljeeriya waa dalka ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. Hadda waxa uu dhacaa waqooyi Afrika. Badka dhulka Aljeeriya waxa uu gaarayaa 2,381,000 kiiloomitir iskuweer. Subscribe saar, like-tana taabo, siina share garee si aad saaxiibadaada ula wadaagto.